Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta. Halkan waxaan ku bilaabayaa koorso bilow ah oo Forex, barashada aasaaska suuqa Forex. Marka soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaadba. Haddaan ku bilowno, waa maxay Forex? Forex waa erayo gaaban oo ka mid ah oo ka yimid Foreign Exchange. Marka la soo gaabiyey bay noqotay Forex. waa Foreign Exchange waa lacagaha caalamiga ah ee dadka iyo hay-adahu ay ku kala iibsadaan lacagaha currency-ga ah. Suuqu waa suuqa ugu weyn dunida. Maalin walba lacaga aad u badan ayaa lagu kala sariftaa. Maalintii marka la qiyaaso lacag 7.5 trillion ah ayaa la isku beddelaa. Waana suuq 24 saacadood maalintii furan, shanta maalmood toddobaadkii. Waa suuq had iyo jeer furan. Saacadaha ganacsiga sessionska waxaa ugu soo horeyso Sydney oo ah Australia, Tokyo oo Japan ah, London oo Ingiriiska ah, iyo New York oo Mareykanka ah. Marka afartaa xilli baa suuqa laga ganacsadaa badanaa. Afartaa xilli baa la furaa. Lamaana lacageedka marka lacagaha laba lacagood la isu raaciyo currency pairs-ka. Tusaale ahaan oo kale Euro USD waa lacagta Yurub iyo lacagta Mareykanka. Marka la isu geeyo waxaa la dhahaa Euro USD. Qaybta hore Euro waa lacagta aad iibsanayso ama iska iibinayso. Qaybta labaad USD-na waa lacagta aad iibsanayso si aad u iibsato. Haddii aan dhinaca kale eegno Forex major pairs waxaa la dhahaa lacagaha doolarka uu hogaamiyo ama doolarka raaca ama doolarka la falgala. Hadda Euro USD oo kale waa lacagta Euro iyo lacagta Mareykanka. GBP USD waa lacagta Ingiriiska iyo lacagta Mareykanka. USD CHF-na waa lacagta Mareykanka iyo lacagta Australia. Lacagta New Zealand GBY-na waa lacagta Mareykanka iyo lacagta Japan. USD CAD-na waa lacagta Mareykanka iyo lacagta Canada. AUD USD waa lacagta Australia iyo lacagta Mareykanka. NCD USD waa lacagta New Zealand iyo lacagta Mareykanka. Marka saasaa shantaa beer marka la isu geeyaa waxaa la dhahaa major pairs. Waa lacagaha Mareykanka waa lacagaha lacagta doolarka ay hogaamiso. Waxaa inoogu xiga bib iyo lot size. Bib iyo lot waxay kala yihiin. Bib isagu waa bibiska waxa lagu xisaabiyo tira ahaan nambarku ka bilaabmo ilaa halkan hadda hoose oo kale waxaa inoogu qoran 10 bib, 1,000 bib ilaa 500, 30 bib, 8 bib iyo 0.01 bib. Micnaha xarafka ugu dambeeya ee labada ah weeye bibka lagu sheegayo. Ama hal ha noqdo ama 8 ha noqdo. Bib markaa saas u soconaya saas ilaa ugu dambeeya marka bib baa. Marka bib isagu saas loo xisaabiyaa. Lotna waxa weeye waa lotkii aad lacagta ku geleysay. Lacagtaada marka aad rabtid inaad $100 aad ku gashid 10,000 oo kale aad wadatay $100 baad rabtaa inaad akoonka aad gashid. Marka wuxuu u kala baxaa afartan nooc. Waa standard lot iyo mini lot iyo micro lot iyo nano lot. Marka 1.00 haddaad ku gashid waxaad halkii bib $10 baad ku gashay. Halkii bib markuu saa u dhaqo $10 buu isticmaalaya ama hoos ha aado ama kor ha aado. Mini lotna waxa weeye 0.10 haddii aad ku gashid $1 baad ku gashay. Micro lotna waxa weeye haddii aad ku gashid 0.01 waxaad 10 senti baad ku gashay.
tan ugu dambeysa waa 1 senti markaa saas u soconaya afartaas nooc buu kala baxaa. Leverage iyo margin. Leverage waa faa'iidada brokerku uu ku siinayo $1,000 kala aad wadataa lacag 10,000 camal uu wuxuu ku siinayaa oo leverage oo aad ku trade gareyn karaysid. marka leverage isagu waa awood uu ku siinayo brokerku uu ku saarayo si aad faa'iido uga hesho suuqa. tusaale ahaan oo kale $100,000 baad rabtaa inaad ku trade garaysid waxaadna wadataa $1,000. $1,000 baa leverage lagu saaraya markaas $100,000 awoodiisa aad haysataa inaad ku trade gareyn karaysid. marka leverage isagu waa noocaas. margin isagu waxa weeye waa lacagtii depositka ahayd aad dhigatay weeye. lacagtii aad dhigatay markaad leverage lagugu daro hadda 10,000 oo waxaad rabtaa inaad positionaad furtid marka leverage-kaagii lagu geeyo margin waxaad u baahan tahay $100 oo kale oo margin ah. $100 baad haysataa 10,000 oo waxaa lagu siinayaa leverage. $100 baadna haysataa 10,000 baana lagu siinayaa leverage awood aad ku shaqaysan karaysid. marka halkan hoose waxaa noogu qoray digniin. leverage-ku waa aalad awood badan oo kordhin karaysa faa'iidadaada khasaarena samayn karaysa. marka mar walba oo aad trade qaadanaysid risk management-gaagu waa inuu ku xisaabsan yahay oo aad garanaysid account-kaas inta aad ugu tala gashay ama maalintaasba ay ku xisaabsan tahay inta trade aad maalintaa qaadanaysid iyo trade walba intaad ugu tala gashay waa inay kuu qoran tahay. noocyada amarada waxa weeye suuqa qaabkaad u gelaysid meesha uu markaa joogo halkaa markaa maraya haddaad ka geshid waxa la dhahaa market order oo marketkaad la falgelaysaa markaa uu marketku meeshuu marayaad ka gelaysaa. limit orderna waxa weeye waxaad limit garaynaysaa meel markuu gaadho oo kale cayiman number cayiman baad ku xidhaysaa market waxaad ku xidhaysaa MetaTrader 4-kaaga ama 5-kaaga waxaad leedahay limitka markuu gaadho traderka ii fur. tan hoose iyadu waa stop loss oo mar walba stop loss kama maarmaysa adoon stop loss ku xidhan akoonkii qaadatid dee lacagtaadu hal mar bay kaa wada guban karaysaa khasaare badan baa kugu dhici karaya. profitkana isaga mar walba inuu automatic ku yahay meel waliba oo zone ah oo suuqu laga soo celin karayo wayna dhigan karaysaa oran karaysaa intaas suurtagalka ah halkaasuu gaaraya halkaa igaga xidh markuu gaadho. waa inaad haddii aad rabto inaad faa'iido ka samaysidna mar walba 2 qaybood aad u gashaa trade-ka oo akoonkaagana uu ku xisaabsan yahay oo aad u gashaa initial profit iyo profit normal ah oo bps cayiman aad uga socotid. initialka mar walba inuu bixiyo oo soonka ugu sokeeya mar walba uu ku dhacayaa marka initialka mar walba waa inuu ku cabiran yahay. sawirkan kale geeska inooga muuqda isagu buy stop iyo sell stop iyo buy limit iyo waa isagu waa meel markuu gaadho oo kale easy fur halkaas markuu gaadho oo kale hadda buy stopkaas oo kale halkaa markuu gaadho oo kale waa suuq sii socday baad leedahay halkaa lambarkaas hore markuu gaadho easy fur oo halkaas iga sii raaci. buy limitna waxa weeye waa suuq hoos u socday oo kale waxaad leedahay halkaa markuu tago wuu soo noqonayaa markaa uu soo noqonayo ii fur. sell stopna iyaduna waa sidoo kale oo halkaa markuu marayo sii raaci. sell limitna iyaduna waa sidoo kale suuq buy u socdo kale waxaad leedahay halkaa markuu gaadho hoos buu soo aadayaa. waa badanaa waxaa isticmaala dadka mashquulsan ama dadka MetaTrader 4-kooda ama 5-kooda iska furaan iskaga danaysto hawlo kala galaa waxay leeyihiin halkaa iga fur suuqa. sidaasna inta badan uma shaqeeyo suuqa wuxuu u baahan yahay inaad focuskiisa iyo journalinkaaga aad daba wado. speed iyo commission farqa u dhexeeya price-ka iyo iibka marka bidka iyo askiga weeye speed farqa u dhexeeya isbedbedelayaan marba price baa soo koraya mar buu kor u boodaya marna hoos buu marna tartiib buu soconaya marka bidka iyo askiga farqa u dhexeeya ee boodboodka weeye speedku. commissionna waa commission oo waa faa'iidada brokerku uu markaa saaranayo akoonkaaga ama trade-ka aad markaa furaysid. marka waxaa jira akoomo oo aan speed lahayn commission lahayn
akoomada aan commissionka lahayn baan mar walba kugula talin lahaa inaad raadisid oo aad xog baadhis ka gashid oo aad akoomada raadisid, brokerada raadisid, I mean inaad brokerada bilaa commissionka aad raadisid oo aad saa ku gashid. Hadda halkan sawirkeena tusayo kale waa normal speed weeye kan laba bib buu dhaqaaqay suu u celcelin laba bib baa ku kordhay 58 iyo 60 waa laba bib. wide speed kana waxa weeye waa 20 bib buu sekimo gudahood ku boodboodo ku gaadhay. Marka kan mar walba waa inaad aski price-ka iyo bid price-ka iyo aski price-ka waa boodboodka u dhexeeya weeye. Risk management iyo psychology. Risk management isagu waa xeerarka maamulaya khatartaada mar walba oo xeerar kuu qoran waa inay jiraan oo aad akoonkaaga riski garayn karaysid. akoonkaagana mar walba waxaan kugula talin lahaa halkii trade inaad 1% ama 2% hadda ugu badnaato aad ka qaadatid. Markaasna de waa inaad tix raaci karaysid oo aad soo ogaatay akoonkaaga lacagta ku jirta ay kuu qoran tahay. markaasaa oran kartaa akoonkayga intaasaa igu jirta 1% baan akoonka trade-ka ugu talagalay. Marka isticmaal stop loss kana mar walba lagama maarmaan. Bilaa stop loss haddaad isticmaashid adaa lacagtaadi gubay. Waa inaad stop loss mar walba ku diyaarsan yahay. cabsina aanay jirin. waayo stop loss haddaad ku xidhato waxaad ka cabsataa ma jirto. waad ugu talagashay akoonkaas inta kaa gubanaysa intaad faa'iidaysid wax walba way kuu qoran yihiin. Marka cabsida haddaad ka saartid meesha akoonka waxa laga yaabaa trade-kii oo in yar hoos u daato hadhow faa'iido kusoo noqon lahaa inaad iska xidhid hadhowna qoomamo iyo fiir iyo grade bay ku gelaya. Marka waa inaad mar walba leedahay qorshe kuu qoran aad raaci karaysid. qorshahaaguna mar walba miiska kuu saaran yahay waa trade furaysid. qodobka afraad journalinku markaad la joogo suuqan forex aad trade garaynaysid aad buu very important u yahay inaad journalin haysatid oo weliba khaasatan buug uu yahay buug miiska kuu saaran yahay oo wax walba oo markaa trade-ka aad furaysid aad dareemaysid aad kugu qoran yahay aad ku qoraysid oo hadhow meeshaad rabtid aad ku qoratid ama telegramkaaga aad ku qoratid ama discordka account aad ka samaysatay oo adiga kuu khaasa aad ku qoratid ama badanaasay isticmaalaan dadku notionka oo kale aad ku qoratid. waana meesha ugu fiican ugu macquulsan notionka oo kale inaad account ka samaysato aad ku qoratid journalinkaaga. waxaa laga yaabaa buuggan inuu kaa buuxsamo oo aad meel kale iska dhigtid laakiin journalinku waa wax computerka kugu jira ku daba soconaya. marka laakiin maalinta aad isticmaalaysid waa inaad buug ku qoraysaa hadhow haddaad rabtid journalka aad ku wareejisid ba notionkaaga. marka waa sidan oo kale 7 bisha 22 waxaan qaatay euro USD long baan qaatay intaasoo bib intrigaygu halkaasuu ahaa stop losskaygu halkaas take profitkaygu intaasuu ahaa riski rewardkaygu intaasuu ahaa oo intaasaan ka faa'iiday. marka qaab noocaasa waa inaad leedahay riski checklistigi oo ah mar walba aad akoonkaaga aad trade ka furaysid waa inay kuu qoran yihiin istaraatiijiyadaadii iyo qodobadii aad ku qaadanaysid. qodobkaas ma ka hayaa sax kaa kale ma ka hayaa sax kaa kale ma ka hayaa sax kaa kale ma ka hayaa sax. markaad saa u saxdid oo qodob walba aad ka dhex aragtid markaas waa trade ka qaadan karaysaa. sababtoo tahay hadhow haddaad qodobadii qayb ka weydid dee waa adaa gacantaas isku gowracay. hadhow baadna waxaad samayn karaysaa dib baad journalinkaaga u raaci karaysaa inaad qodobadii oo dhan ay kugu jiraan oo aad mid walba ka saxday oo qodob kasta ku jiro. marka journalinku wax badan buu kaa caawinayaa. tababarka markiiba ha ku bilaabin real account. talooyinka aan ku siinayo suuqan haddii aad soo gelaysid inaanad markiiba lacagaad leedahay aad ku soo gelin aad ku tababaratid demo account oo aad demo account intaad furatid lacag cabirkeeduna aanu saa u weyneyn 5,000 oo kale 10,000 oo kale intaad furatid aad chatka ku baratid oo candlestick iyo support and resistance-ga iyo soonanka iyo waxaasoo dhan aad ku practice-garaysid waayo waa lacagaad adigu markaa isticmaalaysid maaha. marka tababarka aad kusoo qaadanaysid deemadu wax badan buu hadhow real account kaaga caawinaya. marka
platformska lagu trade gareeyana waa kuwan oo kale, waa labadana la isticmaalaaba, MetaTrader 4 iyo MetaTrader 5. Apple Store-ka iyo Google Store-ka labadaba waa ku jiraan, waad kala soo degi karaysaa. Waana inay adiga ku khaas yihiin oo tools ganacsigaaga ku jiro weeye, oo aanay dad kale intay furaan aanay trade khaldan kaaga dhex furi karayn. Dad waxaa iska jira moogta telefoonkaaga aad isaga dhiibaysid MetaTrader 4-kaagi iyo MetaTrader 5-kaagi kadba kii aad ku trade garanaysana telefoonkaaga ku dhex jiraan. Marka qof aad u dhiibaysaa wuu iska qaadaya, wuu iskaga ciyaaraya, wuu iska furfuraya wuxuu rabo, wuuna ku ogyahay waxaad ku jirtid. Marka mar walba inay adiga wax number adiga ku khaas oo kugu xiran yahay talooyinkan ku siinayo. Marka qodobadan baranay waxaa ka mid ah 4 qodob oo ah waa maxay forex isaga. Waan soo baranay lamaanaha lacageed, waan soo baranay oo currency pairska iyo say isu raacaan. Bib iyo lot iyo leverage-na waan soo baranay. Noocyada amarada ahna waan soo baranay oo ah market order iyo limit order iyo speed iyo commission-na waan soo baranay. Risk management-na waan soo baranay. Marka 4 qodob baan ku soo baranay waa maxay forex casharkeennii ahaa. Casharka xiga bismillaahi kariim waxaan ku baranaynaa chartska iyo candlestick-ga iyo support and resistance-ga. Marka guuleysta, aad baad u mahadsantihiin.